بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مدحوينها جمهورية الصومال مدن عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو wuxuu maanta oo ay bishu tahay 12 bishii 12aad 2024 kulan ballaaran xarunta madaxtooyada kula qaatay gudoomiyayaasha iyo hoggaanka sare ee xisbiyada qaar saddex xisbi qaran madaxweynuhu wuxuu saddex xisbi qaran uga mahadnaqay inay soo ajiibeen kulankii uu ugu yeeray sidoo kale madaxweynuhu wuxuu saddex xisbi qaran ugu hambalyeeyay guushii ay ka soo hooyeen doorashooyinkii 13 Noofambar dalka ka dhacay taasoo saddex xisbi qaran ay ugu gudbeen inay noqdaan saddex xisbi qaran ee qarankan xisbiga wadani xisbiga Kaah iyo xisbiga Kulmiye kuwaasoo ahaan doona 10 sanadood soo socda xisbiyada dastuuriga ee qarankani leeyahay madaxweynuhu wuxuu hoggaanka saddex xisbi qaran u sheegay in la kulanka iyo xog waranka xisbiyada qaranku uu noqon doono mid ay xukuumaddiisu joogtayso si wada tashi buuxa looga yeesho arrimaha qaranka mudnaanta u leh iyo kolba wixii soo kordha ee u baahan in laga wada tashado madaxweynuhu xisbiyada qaranka u sheegay inay qayb ka yihiin talada qaranka wuxuuna ballan qaaday inuu si toos ah ula socodsiin doono kolba xaaladii soo kordha ee u baahan in qarankeenu wada jir uga tashado intaa kadib madaxweynuhu wuxuu gudoomiyayaasha iyo hoggaanada saddexda xisbi qaran si qoto dheer uga xog waramay guud ahaanba arrimaha amniga ee ka jira dalka gaar ahaan colaadaha ka aaloosan degmada Ceergaabo madaxweynuhu wuxuu sheegay in xukuumaddiisu aanay ahayn xukuumad dagaal kula jirta dadkeedii balse ay tahay waajib qaran ama dastuuriya in dalka laga difaaco cadow kasta oo isu soo bahaysta madaxweynuhu waxa kale uu sheegay in ciidamada qaranku ay amar buuxa ku qabaan in ay difaacaan dalka iyo dadkaba dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi wuxuu mar kale gogol nabadeed oo aan shuruud lahayn ugu baaqay cid kasta oo ku lug leh colaadaha ka aloosan bariga gobolka Sool iyo degmada Ceergaabo intaa kadib waxaa hadalkii la wareegay labada xisbi qaran ee Kaah iyo Kulmiye waxayna madaxweynaha si milgale uga mahadnaqeen kulanka wada tashi ee uu ugu yeeray xisbiyada qaranka waxayna sheegeen in tallaabadani uu qaaday madaxweynuhu ay tahay mid u adeegaysa danaha guud ee qarankeena jamhuuriyadda Soomaaliland labada xisbi mucaarid waxay ballan qaadeen inay madaxweynaha iyo xukuumaddiisaba si dhow ula shaqayn doonaan xag amni xag dhaqaale iyo xagga midaynta ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland labada xisbi mucaarid waxay madaxweynaha u soo jeediyeen talooyin waayeelnimo oo dhaxalgal ah oo la xidhiidha xaaladaha amni ee dalka iyo sidii loo maareyn lahaa colaadaha hadda ka taagan gobollada bariga dalka sidoo kale labada xisbi mucaarid waxay madaxweynaha u ballan qaadeen inay dhankooda xukuumadda kala shaqayn doonaan wacyigelinta iyo kobcinta garaadka bulshada midaynta ummadda iyo la dagaalanka propagandada iyo hadallada naxliga leh ee lagu kala qaybinayo bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland gudaha iyo dibaddaba labada xisbi mucaarid waxay madaxweynaha kula taliyeen in la kobciyo lana awoodeeyo xisbiyada siyaasadda ee qaranka iyo hannaanka dimuqraadiyadda taasoo suurto gelin doonta kobcinta aragtida iyo garaadka bulshada iyo in si wada jir ah loola dagaalamo qabyaaladda iyo kala qaybinta ummadda ugu dambeyntii waxaa kulanka hadal kooban ka soo jeediyey hoggaanka sare ee xisbil xaakimka wadani waxayna sheegeen inay labada xisbi mucaarid la qabaan lana qaateen dhammaan arrimaha ay lagaga wada hadlay kulanka xisbil xaakimka wadani wuxuu soo jeediyey in si dhow looga wada shaqeeyo arrimaha mudnaanta u leh qarankeena gaar ahaan sidii tala qaran looga yeelan lahaa xasilinta shaqaaqooyinka ka taagan degmada Ceergaabo iyo bariga gobolka Sool kulankani oo ahaa mid qaranka u lahaa muhiimad iyo mudnaan gaar ah waxa soo xidhay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi wuxuuna mar labaad iyo mar saddexaadba saddexda xisbi qaran uga mahadnaqay ka soo qaybgalka kulankaas wuxuu ku soo dhamaaday guul iyo gabonimo